السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أخيارتي إدغي سنيساي kanaalkeena fikrad ganacsi. maanta waxaan ka hadli doonaa tallaabooyin in aad ka fogaato ay muhiim tahay taa oo ku horseedaysa guul darro xilliyada aasaasida mashruucaaga ganacsi. fadlan nagu caawi subscribe iyo like lana soco muuqaalkan. waxaa jira qodobo badan oo qofka u horseedaya guul darro, balse maanta waxaan sharaxi doonaa 4 qodob oo ka mid ah qodobadaas. ugu horeyn, isku day la'aan. dadka qaar waxaa maankooda ku soo dhaca hal abuuro ganacsi, balse iskuma dayaan in ay horumariyaan afkaartooda oo ay guul ka gaaraan. taasi waa sababta ugu badan ee laga dhaxlo guul darrada. number 2, caajis. qofka inuu ka caajiso hadafka uu leeyahay isaga oo cudurdaar ka dhiganaya waqtiga iyo goobta lagu fulin lahaa in aan weli la gaarin. taasi ma ahan mid sax ah. ha sugin waqtiga ee waa maanta, ma ahan beri. number 3, in aadan aqoon kororsan. oo aan ula jeedo in aadan khibrad kororsan. tusaale ahaan, waxaad furtay maqaayad, muddo 2 bilood kadib waxaad ogaatay in aan wax lagaa gadan. ilbaabada ayaad u laabtay. taasi waa khalad. waa in aad barataa sida xal loogu helo culays walba oo ku yimaada ganacsigaaga. mar waliba oo aad khibrad kororsataa waa mar waliba aad ganacsigaaga guul ka gaartaa. qodobka 4, in aad ka baqdaa guul darro. tusaale ahaan, waxaad haysataa hal abuur ganacsi. haddii aad soo bandhigto, waxaa ka baqaysaa in aad ku weyso hantidaada, asxaabtaada, oo lagu arkaa doqon. mar waliba ha ka fakirin dhanka xun ee ka fakir dhanka wanaagsan. lana saaxib dadka ku taageersan ee kaa caawin kara horumarkaaga ganacsi.